kulanti wacan wanaagsan qiyaarta naga daawata janaalada ilayska xogaha iyo sidoo kale tusmada filmada si wada jira labadani janaal hadoona kale waxaan kugu soo gudbinaa akhbaaraadka ugu dambeeya maanta laga qoraarmaha koonfurta iyo Bollywoodka warbixintan waxaan ku bilaabi doonaa sharuuqan filimkiisa Danki waxa la sheegay inuu ku jiri doono askari kaas oo sidoo kale u dagaalami doono wax walba oo dalkiisa uu kaga baahan yahay inuu ka difaaco tuugada iyo sidoo kale dadka argagixisada Danki wuxuu ka dhigay filimka saddexaad ee sharuuqan ee sanadan 2023 loo daawan doono kaas oo filimkan uu soo kala xiiso leeyahay in doorkiisa ciidanimada uu kaga soo muuqdo taas oo soo kala uu noqon doono filimkii saddexaad ee sanada 2023 kaas oo soo kala jilaagan la imaado kala hor filimka blockbuster sanadkan naqda ee bataan kaas oo jilaagan kaga soo muuqday nin jaajuus ah kaas oo u shaqeeya shabakada Raw actor-kan ay soo kala waxa laga helay dabeecadiisa degan ee filimkaas iyo doorkiisa oo kaga soo qayb qaatay kaas oo soo kala ahaa mid wax walba uu sameynay dalkiisa soo kala waxa si xigta filimka Japan kaas oo bataan korkiisa oo kala wareegay kaas oo noqdo soo kala all time blockbuster ee filimka Japan daawadaasha waxay arkay sharuuqa inuu ku jilay laba door kaas oo aabaha Vikram Mathur kaas oo ahaa ciidan asluub leh kuwaas oo ciidamada Indian Army ka tirsan kaas oo soo kalena uu kor u qaadayo qiimaha dalkiisa oo leeyahay kaas oo kaga soo horjeedinaya dad ay rabaan in qaladaad ay sameeyaan soo kale wiilkiisa Azad ayaa wuxuu mid jaalka ku jira soo kale yahay labadooda mid oo doorarkooda yihiin mid wadaniin ah kuwaas oo raba in dalkooda ay nasfadooda u huraan taas oo soo kale ay noqotay muuqaalada filimkaas laga dheehan karin kuwaas oo noqday mid daawadayaasha aad ka heleen markan Danki ay soo kala waxa la sheegay inuu noqon doono sharuuqan kadib Japan ay bataan inuu noqdo mid ciidanka Army ka tirsan kuwaas oo sharuuqan oo doorkiisa noqon doono mid ciidamada dawladda ka tirsan ee Hindiya taas oo doorkiisa wadanimada filimkaas uu noqon doono mid qof walba aad kaga hesho filimkaas ayaa tani markii uu ku dhawaaqay director-ka Rajkumar Hirani ayaa waxay noqotay in filimkan qof walba ay sugu leedahay filimkan soo kala wuxuu qaadi doonaa sida la aaminsan wadada filimadiisa bataan iyo soo kale Japan markaan waxaa la isku raacay filimkan uu noqon doono film score walba dhigi kara Danki ay waxay film la daawan doono December 2023 kaas oo hal maalin ka soo hormar doono filimka Salaar oo hogaamiyay Barabas kuwaas oo isku dhici doonaan taas oo dagaalku ugu weyn sanadkan ay qayb ka tahay oo December dhamaadkeeda idoo bishaas ay tahay bil waali ah maadaama film waaweyn oo Hindiya iyo koonfurtaba ee teatrada ay wada kori doonaan inta badan yihiin film isku wada dhacaya أنا كلام عن سليق دونا حدقة سلمان إي كاترينا كيف أي وحل إمادن هالشدن كاسو كجا إمادن فيلم كودا تايجر تري حيساله فيلم كحيساله يكوسب سن علمها جاجو سينما تايجر تري وحي يمد مال كدم بسكر وسيكعيا إذا سوق الكورة فيلم كان جوز كيسلا صوف ساي تايجرش أي وحي كوسوجله إلى الدب ugu soo laabtaan shaashadaha dadka ugu horeeya ee la imaada arrimaha jaajusnimada ee Tiger kaasoo filmkooda laga arko shaashadaha waaweyn arrinta xiiso leh waxay tahay in filmkan laga soo bandhigo heesta ugu horeysay ee taasoo lagu magacdaray Leke Brabu Kanam taasoo soo kala daba socotay heesaha jar bastarka naqda ee sida Masha Allah Swaksi Abkas Wagad kuwaas oo Salmaan qayb ka ah Katrina Kaif heestan ay waxay noqonaysaa mid kale oo isfahamkooda ee tahay mid la isku raacay tahay mid waqti la'aana ama baan dhicinin kuwaas oo qof walba aad kaga heshay heestaasna waxa ku luqay xidiga heesaaga weyn ee Arjun maanta ku beegan tahay Isniin October 23 ayaa film soo saaray filmka actionka ee arrimaha jaajusnimada Tiger Tree waxay ka soo saareen heeso ugu horeys filmkaas lagu magacdaray Leke Brabu Kanam Arjun iyo Nikita Gandhi ayaa heestaas ku luqaya halka muusikana uu garaacay Britam waxaana heesta qoraalka iska lahaa Amitabh Bhattacharya halka qoobka ciyaarkan ay sameysay Faiba Emergent heestaas ayaa Salmaan Katrina Kaif ka soo muuqdeen kuwaas oo qoobta isla helay iyadoo heestaas ay heeshadan kaas oo ay ku duubeen qaybta Cappadocia ee dalka Turkiga ku taala waxaana hadda hees qoobka ciyaarka ugu shidan lagu soo bandhigay sidoo kalena style dharka loo xirtin waxay ahayn kuwa fashion ah ama kuwa dhameystiran xarako dib ugu soo laabashada labadaani aad kala wada jecel inay ka soo wada muuqdaan doorarkooda Tiger iyo Zoya iyo taageerayaasha waxay yihiin kuwa aad u xiiseeyay heestaas aad kaga heleen heesta ayaa markan wacdar waxay ka dhigaysaa qaybaha YouTube-ka iyo social media-na kilibada heestaas kamid ah la isla wadaaga kuwaas qof walba ay sheegeen in isfahamkooda Katrina Kaif iyo Salmaan uu yahay mid wali nool
Tiger 3 ay wuxuu daba socdaa taxanaha filimada Ekta Tiger iyo kale Tiger Zindahe kuwaas oo soo kale filimkan qaybtii Tiger 3 lagu soo daray Imran Hashimi kaas oo doorka xumaanta ama doorka laadarka filimkaas uu leeyahay. Filimkan director waxaa ka Manish Sharma kaas oo shabakada Yashrash Films ee soo saaray ka tahay. Salman Khan Katrina Kaif ayaa waxay kuwa saashadaha wacdar ka dhigi doona Diwaaliga ee November 12 2023 wuxuuna kamid yahay filimada ugu xiisaha badan ee sanadkan la sugayay kuwaas oo la rabo in lagu soo bandhigo qaybaha tiyaatarada. waaga daawad dhinaca kale waxaan isla eegi doonaa Nani filimkiisa 31 oo magac loo helay soo kale waxaa laga soo saaray filimkaasi muuqaal maalmo ka hor aad markii aan ku dhawaaqin in directorka Vivek Athreya in uu filimkiisa Ante Sundareniki kadib uu Nani oo film kale ku wada midoobi doonaan kaas oo actor-ka mar labaad oo rabo inuu la shaqeeyo director-kan waxaana laga soo saaray muuqaalka filimkaasi kaas oo ka dhigaysa wada shaqeyntooda labaad kadib filimkooda kala hore guuleystay. Nani filimkiisa 31 ay wuxuu yahay mid magac loo bixiyay sidoo kalena waxaa laga soo saaray muuqaal cusub muuqaalkaasna oo ah muuqaal filimka magac loogu bixinayo waxaana filimkaas loo bixiyay magaciisa Sariboda Sanifaram waxaana filimkaasi qayb ka ah tiishada Brianka Arul Mohan iyo sidoo kale SJ Surya kuwaas oo doorka muhiim filimkaasi laga siiyay. filimka ku sodanaad ee filimka Nani ayaa muuqaalkiisa waxa laga dheehan karay inuu yahay filim ku saabsan arrimaha actionka kaas oo sidoo kale muuqaalihiisa laga arkay Nani inuu yahay mid ku xiran silsilad waaweyn ee qonfil kuwaas oo sidoo kale uu ka baxsanayo asagoo sidoo kalena ay jirtay in uu sugayo waqtigiisa waxaan muuqaalka laga dheehan karay in lagu hadaaqayay in ay walba uu leeyahay maalintiisa markaana la sheegay in maalintiisa la gaari doono Nani kuwaas oo ka baxsan doono silsilaha waaweyn ee ku xiran kuwaas oo shacabkiisa uu badbaadin doono taas oo sidoo kale filimkan uu ahaa mid aad u xiiso badan marka loo fiiriyo muuqaalka waxaan sidoo kale naqanaysaa in uu ka jabsanayo qaybta silsilada xilli ay ku beegantaa Sabti taas oo sidoo kale magaca filimka laga dheehan karay Sanifaram taas oo sidoo kale uu marka uu soo jibiyina oo banaanka u soo baxay iyo sidoo kale wajiga oo qarsanayo kuwaas oo shacabka ay rabaan inay arkaan wajigiisa. filimkan ayaa wuxuu yahay filim action u dhameystiran iyo madadaalo kaas oo ka dhigaya in jilaaga manaxanka u jiran kaas oo doorkiisa oo hadalhayn ka abuura maanta tani markii uu la yimaado muuqaalka filimkiisa kaas oo 2 daqiiqo iyo kama kor u dhaafaya waxaana sidoo kale ka dhigaysaa Nani iyo sidoo kale Vivek Athreya in mar labaad filimkan ay ka wada shaqeeyaan halka Brianka Arul ay ka dhigaysa inay wada shaqeeyaan kadib 2019 filimkooda arrimaha actionka iyo shactarada ee gaangaleeda kaas oo sidoo kale tiishada filimkooda ugu horeysay ee Telugu ay ku soo gasho. Nana markan wuxuu mashquul ku yahay filimkiisa soo socday Hi Nana kaas oo director ka yahay ninka directornimada ku cusub ee Shoryuf waxaana sidoo kale filim ku saabsan arrimaha jaceelka kaas oo gabar iyo aabbaheed jaceyl ee shaashada ku wada wadaagi doonaan waxaana sidoo kale filimkaasi qayb ka ah Mohan Thakur, Babi Kiara iyo sidoo kale Jairam wuxuuna ku door muhiim ah filimkaasi laga siiyay. filimkan December 7 la daawan doono iyadoo sidoo kale muuqaalo kooban iyo heeso filimkan laga soo fasaxay iyadoo qof walba aad kaga isfahamka Tisha Mohan Thakur xidigani Nani ay ka soo wada muuqdeen filimkan. intaaynu kusoo kabana daawad warbixinadan muuqaaladan maanta aan ku qaada dhigin warbixinada ugu dambeeyay aan sadaan waxa aan kuwa ugu xiisaha badan waa la wadaagi karteen daawadaashana ku taxambarta tusmada filmada iyo soo kale bartkale la isku xogaa wadkamaas intaan laabsad muuqaaladan wala falgashan leegta asxaabtana la wadaagtaan hadda warbixinadan ka shaleeyn oo soo kale asxaabtana wadaaga meel baa joogtaana maalin wanaagsan.